بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo qodobo kooban oo ku aadan geedi socodka dastuurka dalka sida aad wada ogtihiin yagleelkii jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya sanadkii 2000 waxaa la kowsaday dadaalo lagu baadi goobayo dastuur ay heshiis ku tahay bulshadii Soomaaliyeed ee ku kala irdhowday burburkii dawladnimada iyo dagaaladii sokeeye 22 sano ayayna nagu qaadatay inaan ku heshiino dastuurka ku meel gaarka ah ee aan maanta haysano oo Agoosto 1 2012 ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 825 ergo wakiil ka ahaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed dastuurkan way dawladnimadeenu ku dhisan tahay waxa gundhig u ah mabaadii ay dadka Soomaaliyeed uga soo heshiiyeen hayaankii dheeraa ee aan ku baadi goobaynay dawladnimadeena sida inay Soomaaliya tahay jamhuuriyad muslima federaali ah dimuqraadi ah xisbiye badan oo ay caasimadeedu tahay magaalada Muqdisho waxa kale oo mabaadii dhaqan gashay noqday awood qaybsiga dalka iyo inuu baarlamaanku saldhig u yahay dawladnimadeena mabaadiidaas ay dadka Soomaaliyeed ka soo heshiiyeen oo gundhig u ah haykalka dawladnimadeena ma ahan go'aano si fudud loogu bedeli karo damac siyaasadeed iyo rabitaanka koox gaar ah ama ma ahan go'aano baarlamaanka labadiisa aqal ay ku filan yihiin ee waa go'aan u baahan in ummadda Soomaaliyeed oo dhami ay heshiis ku yihiin dastuurku waa heshiis ummadeed oo ka dhaxeeya dhammaan dadka Soomaaliyeed shacab iyo dawladba waxaana sharciyadiisa hirgelintiisa iyo kalsoonida lagu qababa go'aaminaya hanaanka loo marayo qabyatirkiisa dastuurkan ku meel gaarka ah wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hanaanka loo marayo dib eegistiisa iyo dhamaystirkiisa in la bedelo 45 qodob iyo 97 faqradood la soo kordhiyo 19 qodob iyo 94 faqradood oo aan ku jirin dastuurkan ku meel gaarka ah la tiro 3 qodob iyo 26 faqradood oo horey ugu jirtay dastuurkan ku meel gaarka ah ma ahan dastuur la dhameystirayo ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn waxa xusid mudan in madaxda dalku aanay xitaa ku dhaqmin habraaci ay sida sharci darrada ah u ansixiyeen way qorayaan dastuur cusub iyadoo uusan xitaa koorumka baarlamaanku dhamaystirnayn isticmaalayaanna habraacyo cusub oo aan la ansixin dastuurkana waafaqsanayn waxay ahayd inaan dadka iyo dalka waqtiga laga lumin oo juhdigan aan miro dhalka ahayn loo weeciyo arrimaha mudnaanta u leh dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka ee u baahan heshiis siyaasadeed oo dhab ah sida hanaanka federaalinta maaliyadda dalka wadaagga khayraadka dabiiciga ah federaalinta garsoolka jinsiyadda Soomaaliga awood qaybsiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada u dhaxeeya maqaamka caasimadda iyo in la yagleelo golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka si ay dawladnimadeenu u saldhigato dawladnimada Soomaaliya waxaa maanta tabasho uga maqan Somaliland halkii ay shacabka Soomaaliyeed sugayeen in Somaliland laga qanciyo tabashooyinka ay qabaan si ay qayb uga noqdaan geedi socodka dawladnimadeena waxa ayaan darro ah inay madaxda dalku ay maanta kala dhantaalayaan Soomaalidii ku wada joogtay heshiiska siyaasadeed oo gaarayaan go'aano waaweyn oo taabanaya haykalka dawladnimada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka
iyadoo dowlad goboleedka Puntland aanay qayb ka ahayn waa dhaqan abuuraya khilaaf kala shaki ah iyo hubanti la'aan siyaasadeed dhaawacna ku ah hayaanka dowladnimadeena midnimada dadkeena iyo dalkeena iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan sidaa daraadeed madaxda qaranka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobeynay siyaasad loo dhan yahay ogaadaana in dadka Soomaaliyeed aanay iloobin hadalladiisii ahaa in qof keligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dowladnimada aan maanta haysano guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa horyaalla mas-uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka Soomaaliyeed oo la il daran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay kasoo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go'aanka aad idinku maanta ummadda Soomaaliyeed u qaadaan waxaan sidaa daraadeed rajeynayaa inaad u hiilisaan dalkiina iyo dadkiina kana fogaataan go'aan kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh